muuqata looxay ku taxan yihiin masaabiir aad u fara badan haddaba marka uu looxaasi saaro dhabarkiisa waxaa dusha kaga fadhiisanaya si uu ugu cadaadiyo masaabiirtaasi wiil kale haddana wax dhibaato ah uma geysanayso masaabiirtaasi jidhkiisa sidoo kale waxaa la yaab ah in nimcaan afkiisa gelinayo mindi aad u dheer laakiin aad adigu arki karto mindidaasi daabkeeda oo kaliya sidaasi si la mida nimcaan waxa uu awood u leeyahay inuu afkiisa geliyo makiimado isla markaasina uu sheekeeyo makiimadihii oo afkiisa ku jira wax dhib ahna aan u geysanaynin afkiisa haddaba nimcaan waxa uu wareysi gaar ah siiyey telefishinka caalamiga ee Ariel TV waana kan isagoo ka warbixinaya hibooyinkiisan nimcaan uu hore u soo dhaw telefishinka Ariel TV kolley waxaan doonayaa inaad eegto oo TV-ga la wadaago goormaad ogaateen aad leedahay hibo noocan kala ilaahay hibu siiyey marka anigu hibadeyda hadii aan kaaga waramo xilligan ogaaday waxaan ogaaday inuu 2019 dhexdiisii 2018 bishii shanaad baan ogaaday waxaan isku dayay inaan soo bandhigo hibadeydii oo dadka magaalada jooga inaan tuso inaan dadka tuso waayo caqibadan dadka kala kulmaya aad bay u badnayd marka waxaan maalin 18kii ma soo bandhigin waxaan isku dayay 2019 in barnaamijkayga hirgalo oo aan soo bandhigo oo ku soo bandhigaba waliba xaflad aan anigu qalin jibinay iskuulada ku cusub magaalada Hargeysa oo aan ka qalin jibinay ayaan isku dayay inaan ku soo bandhigo hibadeedii dadka ku tuso marka maalintaas aan ogaaday waxaan ahay 2019 maadaama waxaan yihiin wax khatar oo adiga naftaada iyo wax yeeli kara jidhkaaga waxa ku kalifina samayso Cabdishbaaro no dadka adduunka jooga horta wax walba waa la isku dayaa laakiin anigu tan waa hiba baan koonan karaayo waayo hibaan u leeyahay marka aniga no waxa igu kalifay waxaan daawan jiray no YouTube-yada iyo waxaasan ka daawan jiray dadka talentiga soo bandhiga ama dhacdooyinka adduunka soo bandhiga sidii aan u daawan jiray ayaan isku dayay ilaahay bay waafajiyay maalmaha kamida inaan maskaxdayda ay ku soo dhacdo adigu mu ka duwan qofka xagga joogay barnaamijka noocaas matalaya sidii daraadeed baan isku dayay waxaan noqon karaa waxaan doonayaa inaan noqdo qofkii ugu horeeyay Soomaaliland ka dhaliya barnaamijka noocan talentiga ee dhacdooyinka adduunka laga qiimeeyo barnaamijkan maadaama aan u ahayn barnaamij Soomaaliland ka hirgalay oo ka shaqeeya duruuf intee leeg ama dhibaatooyin intee leeg ayaa dadka kaaga yimaada markaad sameynayso waxan horta practicalka waxaan ku qabtaa guriga trading baan ku sameeyaa qol yar oo anigu samaystay ka bacdi qolkayga yar baan ku tijaabiyaa markaan ku tijaabiyo ayaan isku dayaa inaan dadka tuso kabacdi dadka markaan imigoo kale ku tijaabinayo dadka dhexdooda caqabadaha ay galo yimaada hadaan Cabdishbaar wax kaaga sheego horta waa light aad bay badan wallahi waxaan arkay qof anigoo xaflad yaro gaaban oo ay arday qabsadeen intaan ku tijaabiyay oo TV waxaas joogin oo ay inta ku qabtay oo xafladii aan ku soo bandhigay ayuu midi maalin wuxuu igu yiri naw masaabirta anigoo saa ugu jiifsanaya ayaabuu midi igu yiri naw nimcaano masaabirta waa laga qaaday kuma jiifsan inka laga mid waxa kamid ahaa iska daa waxaan wax jira maaha waxaan wax dhibaato kaaga soo kordhisay weeyaan fadlan daawaday ka taxadir inaad samayso muuqaalkan oo kale waayo waxa ay waxyeeleyn kartaa naftaada iyo mustaqbalkaaga Cabdishbaar Maxamed Xuseen telefishinka caalamiga ee Ariel TV Hargeysa